war degdeg ah ciidamada Soomaaliland oo laga adkaaday furmaha hore dagaalka ayaa duqeymo u geysanaya guryo ay degan yihiin dad shacab ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadka deegaanka ayaa sheegay in Korneel Muuse Bixi uu amar siinayo dhalinyaro iyo ciyaal ka soo jeeda beesha habar jeclo waa siday hadalka u dhigeen sidoo kalena waxay sheegeen inay dhamaatay afmishaarnimo iyo xaajadina ay tagtay dhiig iyo utun waxaana laga cabsi qabaa in colaadan ay ku sii faafto deegaano badan oo hor leh waa siday hadalka u dhigeen niman argagixisada oo Muuse Bixi rujuum wato ayaan isku haynaa habar jeclana waa kow bay ka tahay waa loogeey nin walba wuxuu geystaa ugu jira dhiisha caanaha madaxu dhigtaan walba u yaala halka wixii ka dhacay habar jeclo waxay ka tahay ugu dhaxaad kiiska halka gudubteeda habar jeclo idinka qaatay bareero oo waxa tiraahdaan hore uma yibirino hore wixii meesha ka dhacay rag gaantala la dhacay Laascaanood Cali Barraxaan iyo Faysal Cabdi Bootaan waa loogeey madaxa madaafiicda ninka sheegtay waa in Cabdi Bootaan waa nin habar jeclaa war miyaan idinka ahayn wuxuu geystay miyaan idinka in waxdii yaalahayn bahashuna waxay tagaysaa qoys reer wada cabaatiriye wada iyo cawda daaqee in la is ugaarsaday tagaysaa cidda ay ku hadhaysaa ee qaadatay bahashuna waa idinka habar jecel haddii alla kuu roon yahay waxaa tiri dawlad baynu wada leenahay oo dawlad anigu dawlad kulama lihi dawladna ma aqaan Soomaaliland dawlad maaha mana ihi kamana midihi anigu SSC baa la yiraahdaa daaroodiisin baan ahay adna isaaqeen baa tahay wadiga ku atuuraya hangashiya ka tuuraya in darada weyn iyo ceelaf weyn la tolaya isaaqee ee lagu taaglay namada soo ururaya mari calastahay meenu sayna labadeena meenu sayni walaal soo waxa dalbatay soo celisay maaha war waxaas ina kala saari mayso godobta ay ku dhigan Cali Barraxaan iyo ninka la yiraahdo Cali Barre iyo ina kaahin iyo ina Cabdi Bootaan aad qaban weeyay ku raacday waliba gareebasha ku siisay afmishaarnimo way dhamaatay oo yaalba sheeganaysaa afmacaan waxa maqaxyaa laga wada shahaa xaashadu markay xaajo dhiig gaadho iyo xaajo dhaqan iyo xaajo colaadeed afmishaarnimo adeer ma shaqayso hadii alla ku roo yahay wixii aad dhigteen madaxeeda waxaad ka heshaan waxba ay ka siinina habar jeclana ma garanayo meel laga wado wax leeyinka midgaankii nafsi bax ma helo reer buu la yaalaa tiraax baa ku dhacda uu ku jilaashadaa uu isla baaba'an nagu marka uu soo daayay dawlad soo kacdo kuwa reerkan alla baabiga iga rado ka guuraa mid sabanku haye saban baxsanaabuu u tagaa oo sabankii ka soo weedaartay hadda raba jeclo waa sidaa annagayna u soo wareegay dabka meesha ka baxaya habar jeclaa wata hadeer waxaa meesha ka dhacay nimanka habar jeclo waa abtiyaashay habar jeclaa waxa ka wata aadayo halkan idina waa ku goosateen dadkiina waad ku leyseen awoodeen uma badbaadin karaysaan dad ugu ka buuxdo ma badbaadin karaysaan sidoo kalena taliyaha booliska SSC Khaatumo taliya gowrac ayaa shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ugu baaqay inay la shaqeeyaan booliska sidoo kalena waxa uu sheegay in muuqaalada lagu duubo magaalada dhexdeeda ay mamnuuc ka tahay sida goobaha muhiimka ah ee goobaha ciidamada isimada iyo waliba xarumaha dawladda maamulkaasi taliyaha hadalkiisa si wata ayaa sheegay in magaalada ay ku jiraan dad fara badan oo basaasiina sidoo kale ciidamada cadawga ay ku sugan yihiin duleedka magaaladaasi dadka shacabka ayaa ugu baaqay inay ka feejignaadaan sidoo kale taliyaha ayaa hadalkiisa ku daray in cadawgu ay maleegayaan dhagaro fara badan sidoo kale dadka shacabka gobolada SSC Khaatumo ayaa ugu baaqay inay la soo xidhiidhaan laamaha amniga ee kala duwan ee magaaladaasi si ay tallaabo sharci ah ugu qaadaan lagu soo qabto ayagoo ka soo duubay sida goobaha ay ciidamadu degan yihiin jiidaha magaalada dhexdeeda waxa qaban doona qodobo ay wax way ka mid tahay sida basaaska aanu naqaan waan ognahay waxa jira dhalinyaro badan oo iska xasaasiyeysan oo xilliga goobta dagaalka lagu jiro kale fiidiyooyo iska duuba magaalada fiidiyooyo iska soo duuba way jiraan meel loogu talagalay fiidiyooyo lagu galo magaalada barso sida shuhaadada oo kale in qofku yimaado soo ku galaan fiidiyo ku duubo barimaska caadiya ee kimbaraha cadiiman aan loogu talagalin fiidiyooyada sida goobaha ciidanku degan yihiin goobaha ay degan yihiin isimada iyo dhaqanka goobaha xarumaha dawladda ee sidoo kale ay ku dhex yaala magaalada gudaheeda in aan laga soo duubi karin wax fiidiyo ah iyo wax sawir aan laga soo qaadi karin ciidan cidii lagu soo qabto arintaasna ee sharciga mutaysan doonto insha Allah taala iyo kuwa u shaqeynaya qolada nabadiidka aan ognahay in magaalada ku jiraan ay ku dhumaalaysanayaan waxaan leenahay markii labaad aan digniin ka bixino cid alla cidii amniga khatar ku ah ee waxyaalaha lidka ku ah ku hawlan
isku soo dhiib sharciga waa kawte kahnews